علي حسن محمد علي مريحان وزيرka howlaha guud guriyeynta ee gaadiidka Soomaaliland ayaa saaka si rasmi ah u daafray muddo ku siman dhowr iyo 20 sano kadib dugsigii farsamada gacanta u reebana makaanikada oo hore u hoostagay jiray wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland isagoo gacan dheeriye kaliya mas'uuliyiinta sidoo kale saraakiisha kala duwan ee wasaaradda howlaha guud munaasabadan oo reebanayd daafurka dugsiga sidoo kale imtixaan lagu kala saaray in ka badan 100 arday oo loogu talagalay inay noqdaan dufcadii ugu horeysay ee lagu furay dugsigan waxaana munaasabadan qayb ka ah marka laga yimaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha agaasimaha guud ee wasaaradda iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda gudoomiyaha imtixaanaadka qaran agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo saraakiil kala duwan oo ka socotay wasaaradda waxbarashada wasaaradda howlaha guud iyo sidoo kale hay'adda shaqaalaha dawladda iyo 100 iyo dheeraadka arday ee xilligan isu soo diyaariyay inay imtixaanka nasiibkooda ku kala qaadaan waxaana halka barbilow iba fulay kulankiisa markaana sid weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiintii ka qayb galaysay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud Mukhtaar Maxamed Ali 20 arday si loo qaataa runtii decision ka fiican oo wasiir ka qaatay wasiirku waan u mahad celinaynaa inuu yiri cadaalad loo sameeyo dadka waxaan aaminsanahay maanta halka aan joogo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka anigu oo DG-ga ah mid ka ayaan ma garanayo qof magaciisa saxan magac qora indho qorana qof dadka ma garanayno yimid dhankooda waxay guna hadalka isaga daba maray qayb ka mid ah agaasimo waxeediyada wasaaradda howlaha guud oo maalmihii laga soo gudbay si weyn ugu fogaan hirgelinta barnaamijkani gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa iyaguna dhankooda si qoto dheer u dul istaagay doorka wasaaraddan ay ka qaadatay hirgelinta daayirta oo taariikhda markii ugu horeysay helaya goobo waxbarasho oo imtixaan ay u galaan waxaan fariin u diraynaa carruurteena fariin u diraynaa waxaan leenahay waxbarashadu muhiim ah waxba isku mashquulinina daaqada laga soo gelin kara haddii laakiin sidaan sameeyno oo imtixaan ku qaadno oo wax kasta fariin kale aynu diraynaa oo in leenahay ninkii wax barta ayuunba halkan soo gaaraya malaha 20 sano dhowdhow xafiiska imtixaanaadka joogay horta waa ii koow wasaaradaha dawladda ka mid ah oo waxeega xalaal iftiin baa la qashaa tiraahdo soo bandhigto maanta koowa kaana ilaahay ugu mahadnaq runtii waxaan aad wasiirka waliba howlaha guud ugu hambalyeynaya Sharmaake Axmed Maxamed Geelle gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa dhankiisa dareen suuban ku qaabilay mas'uuliyiinta wasaaraddan iyo sidoo kale ardaydii imtixaanka isu soo diyaariyay waa cadaaladda wajigeedii koobaad talabaadi waa inaad mar labaad tartan u gali doontaan inaad shaqo heshaan oo noqoto wixii aad soo baratay waxa dadka kale ka sooca maanta waxaad ku jirtaan tartan aqooneed waxbarasho la soo bandhigay baa leeyahay yaa baranayadiina waxa la yiri tartan ku soo kala gala uu kareys wasiirka iyo wasaaradda howlaha guudba inay 20 dooniyaan hoosta ka qortaan cidna ma arkeen kuma haysan Liibaan Yuusuf Ismaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ayaa isna goobta ka hadlay intiina qaadataan oo la dhamaysataan oo dufcadii ugu horeysay ee taariikhda gashan noqotaan ayaa runtii aan u baahanahay oo passion iyo kalgacal waxbarashada aad doonaysaan maanta imtixaanka u galisaan aad runtii ku wajahdaan gunaanadkina waxa si rasmi ah kulankan u soo gunaanaday wasiirka howlaha guud guriyeynta ee gaadiidka Soomaaliland Ali Xasan Maxamed Ali Mareyxaan qaybta makaanikada oo noqon doona iskuul ay dhigtaan sanad kasta 20 arday ka soo baxaan 2 sanadood uu noqonayo waqtigiisu laguna qaadanayo shahaadada diploma runtii waa wax aad iyo aad wasaaradda iyo qarankaba qiimo weyn ugu fadhiya waxaynu halkan u fadhinaa iskuulka aan sheegay ardaydii ka qayb gali lahayd oo imtixaankii halkan lagu qaadayo lagu kala hufayo lagu kala haadinayo waa aragtaan gudoomiyihii marka inaanu soo celinno kalsoonida iyo rajada waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaradda howlaha guud oo shaqaalaheeda iyo madaxdeeda labadii bilood oo dambeeyay gacanta ku hayay sidii ay halka aynu joogno ay u soo gaar lahayd waxaana intaa kadib wasiirku xariga ka jaray hoolka u reeban qalabka kala duwan iyo gaadiidka ee sida tooska loogu bari doono ardayda iyo sidoo kale galaaska ay ku baran doonaan culumta oo qoraala oo si qurxoon loo qalabeeyay
waxaana intaa kadib aan kala sheekaystay ardaydii kala duwaneyd ee imtixaanka isku soo diyaariyey oo wajiyadooda aad ka dareemaysay shucuur gaara iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inay imtixaan xora ay calafkooda kaga qaadaan iyo sida ay ugu oomanaayeen helitaanka xirfadahan aad iyo aad waxay tahay dareen aad aan la soo koobi karin isla mar ahaantaa maadaama gelayno imtixaankii farsamada gacanta insha Allah waxaan rajaynayaa nasiib wanaagsan iyo in imtixaan ku soo baxo oo noqdo qofkooda ama qofka labaad marka waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya wasiir Cali Mareexaan oo ah in qofka kaliya ee aan u malaynayo inuu si cadaalad oo horumar ka muuqdo inuu ku sameeyo wasaaradda intii uu joogay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyada qaybta machiniska kolley farxad weyn bay tahay maanta aniga hirgelinta dugsigan waxbarasho ee u gaarka farsamada makaanikada ee wasiirka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaraddan ay ku guuleysteen in dib loo soo nooleeyo ayaan kaliya ku ekayn dardarta cusub ee wasiirka iyo sidoo kale mas'uuliyiintan ay la yimaadeen tanaynta ay xilka hayeen iyadoona bilihii laga soo gudbay sidoo kale wasiirku xadhiga uga jaray kaalintii shidaalka ee dawladda oo muddo dhowr iyo 20 sano iyaduna dhankeeda shidaalka ka oomanayd waana ibafur cusub oo wasaaradaha dalka u muujin kara in dib loo soo nooleeyo goobihii kala duwanaa ee dawladdu ku horeysay oo xilligan si weyn ay uga horeeyaan goobaha gaarka loo leeyahay oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa.